aamina maxamed abaadir waxay ka mid ahayd jimlayaasha keena bagaashka suuqani dhammaanba wixii ay hanti lahayd ee halkan keentay halkan ay ku shufbeelaan wata daawadayaal arkaysaan muuqaalkeedii iyo sida ay meheradu u eegaatay iyo si isku bedelay gurigii quruxda badnaa ee ay alaabta ku soo rogi jirtay ooyo bal annagoo kula qaybsanna dareenka iyo dhibaatadan ku soo gaadhay bal waxaad ka warantaa adu marka hore maxaad keeni jirtay maxaa saalan kaaga khasaaray waxaan keeni jiray alaabta bagaashka jilmada nooc walba bunka ka ridqanka buurbuuran shumburada basbaaska shafaaxda ay nooc jilmad laanaha bacdi wixii rabadaantan uu soo urursano ilaa 3 gaari baan meesha ku soo rogay bacdi habeenkii uu dabku qabsaday meesha waan joogay halka maxay guriga 8aad iyo ka 7aad mid waxa mooyay ayuu ka soo qabsaday laynkayada safkaygaas ka soo qabsaday markii uu qabsaday barandaya waxa ololay wixii xagga sare laga dhisay hararka ahaa ka bacdi waxa nagu soo daatay dambiilihii iyo wixii dabkiiba nagu soo daatay laydhka marka waanu ka cararnay xitaa intaanu galaa aqalka waxba saa waanu uga awoodi weynay lacaga xitaa markii aanu soo gurno sidaa u dhignay baaldigu dhexdina waan kaga cararnay qasnadaha iyagii waa kuwa qasnada aan wax ku guranaynay shay kama aanan awood jimcay ahayd meheradu way wada xidhnaayeen hadii ay cidna loo dalbi lahaa meheradu way xidhnaayeen markii dambe dabdamiyaashii ciidanku yimaadeen meel la soo maraa la waayay wixii baalkiiba ku shufbeereen ciidanka qaranka Allah guuleeyo raggii nin walba gurigiisa xidhnaay oo jimcaha uu iska joogay uu soo baraarugay markii la yiraahdo baa gubatay ciidanku haduuna joogin rag dabkaas isku soo wada guri la nin walba hantidaadii ka salgaar boonan la laakiin Allah guuleeyo dawladda ciidanka qaranka abniga Allah guuleeyo iyaga dadkii ka kala hiray iyagana dhimashiyo dhaawacba badbaadiyay iyo maxay ahayd dabdamiyaasha Allah guuleeyo dawladda iyo calanka iyo ciidaba salaam alaykum waraxmatullaahi maxaad ku qiyaasi lahayd hantiga halka kaaga baabay lacag ahaan xadad qiyaasto hantida aad bay u badnay hantidaydu 3 gaari baan soo rogay mid walba ka ugu yarba $15,000 ahaa kuwa kale way ka badnaayeen xoolo way kala qaalisanaayeen bunkaasi qaalibi nagu taagnaa kiintaalka kaliya waxaanu siinaa $700 adu hanti badan bay iga gubatay wallahi la qiyaasi kareen alxamdulilaahi rabbil caalamiin naftayda hadaan kala orday lacagna waa la iska helayaa adduuna waa la iska helayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi halka suuqa joogtay ganacsiga waxaan joogay ilaa intii dalka lagu soo noqday intii hore daayo intii marka dalka lagu soo noqdayna meesha ma joogay inta ma 30 sano halkan baan ka ganacsanayay deewaanu alxamdulillah waanu iskaga dhaamay meherada kala ma lahayd iyo meel kale wax ku yaal meherada baan lahaa agoon baan haystay aan ku korsanayay intana 10 meheradoodii ahayd oo intaydaas ma wallahi ku yimaan qabay ma sha Allah imkana Allah naga caawilo annaga iyo wixii islaamaba Allah naga caawilo salaamu calaykum waraxmatullaahi tahay daawadayaal imika meheradan halkan meherad baa jirtay weligeed meherad ahaydna dal la soo maayo halkan inta yar baa laga soo saaray gabi meheradii dhameeyay buuxday baqaar dhan buu ahaa oo soo dajiyay gariimada jilmad laanu ahaa ka muuqata marka ninkii meherada lahaa halkan taagan yahay marka warbaahinta lama hadli karayo sababo la xiriira khasaaraha soo gaaray awgeed markaad aragto meheradan